su'aalo kadisaan weydiin doonaa dhalinyarada hareerahayga fadhida. Gurigiina ma joogaa qof macaan leh? Aabahay baa u dhintay. Qof ehelkiina macaan kuma saamay? Qof ehelkayga waxaan garanayaa intaan garanayo qof macaan leh. Gurigiina qof macaan leh ku nool yahay? 4 qof baan garanayaa gurigayga oo cudurka macaanka leh. Guri kasta wadanka maanta waxa laga soo helayaa dad uu ku dhacay cudurka macaanku. sidoo kale dad kale oo inta ka badan waxay halis ku jiraan cudurka macaanka. Balse su'aasha isweydiinta mudane waxay tahay isugu jira cudurka macaanka. waxaan su'aasha weydiiyay Mustafa Cabdullaahi oo ka shaqeeya u dhaqdhaqaaqa ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka macaanka. xanuunka macaanka waxa ugu jira halis dadka burburan, dadka qaadka cuna, dadka sigaarka caba, dadka khamriga caba, dadka inta badan cuntadoodu u badan tahay cuntada carbohydrateska. marka lagu xanuunsado isla Mustafa jira wax xiriir oo ka dhaxeeya cuntada aynu cunno iyo cudurka macaanku. tusaale ahaan cuntooyinka bariiska iyo baastada iyo waxyaabaha sonkoruhu ay ku badan yihiin qofka oo qaata aan samayn jimicsi taasuna waxa ay keenaysaa in qofku u gudbi karo darajada macaan. sidee looga hortagi karaa haddaba cudurkan macaanka? waxa weydiiyay isla su'aashan su'aal cabdi oo ka tirsan inuu ka soo daafo. tallaabooyinka ugu wanaagsan ee cudurka lagaga hortago intaanu haleelin waxaa kow ka ah qofku inuu yaraysto cuntooyinka sonkorta leh. 2 inuu qofku isticmaalo cuntooyinka buushiga leh ama gaska leh sida garowgii iyo galeydii. 3 qofku waa inuu isku dayaa cuntooyinka la qasaacadeeyay inuu gebi ahaanba ka saaro cuntooyinka uu isticmaalayo. 4 qofku waa inuu sharaabkiisa koowaad inuu ka dhigo biyaha. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha lagaga hortaga macaanka inuu qofku iska ilaaliyo waxyaabaha balwadaha ah, inuu qofku sameeyo jimicsi. marka qodobada aynu soo sheegnay waxay keeni karaan inuu ka baaqsado inuu ku dhaco cudurka macaanku. waxaan bulshada ugu baaqaynaa inuu ururka Sandaafo si bilaa lacaga in aanu kala talin doono waxyaabaha uu u baahan yahay xagga cuntada qofka macaanka leh. aananu u sheegi doono sidii uga hortagaya ka aan macaanka lahayn.